inankii arrintiisii Charlie Kirk dilkiisii cajiib bay arrintiisii noqonaysaa arrintii dardar bay yeelatay gabadheennii magaca lahayd waxay soo bandhigtay in maalmahaas oo dhan ayaantaas ay diyaaradda Egyptianihi ka soo degtay airportka diyaaraddii hore waa tii la ogaayay la yidhi 300 mise 200 feet above ground diyaarad baa jirtay saacad ka hor na soo yara degtay oo above ground intay stealth sidaa u istaagtay wax dejisay haddana markii dilka kadibna 30 minutes sidaasi leeg samaysay it looks like inay qof daroob garaysay qofna qaaday waxa kaloo jira haddana waxa la ogaaday diyaarad Egyptian ah inay jirtay oo meel walba oo uu tago waa diyaarad Ingeyda oo Egypt laga leeyahay military plane laakiinse dadkan oo dhammi way wada shaqaystaan Egypt sirdoonkooda iyo sirdoonka reerkaasi sidaas isku yihiin sidaas ay wada shaqaystaan ma garanaysaa sirdoonadoo dhammi way isla shaqeeyaan waxa laga yaabaa dadku iyagoo ama hadday doonaan dadku waa Mareykan hadday doonaan waa dadkan wax dilo oo dhammi assassinisku waa gruubo isku xidhan weeye oo intooda badan ay reerka isaga ahay maalgeliyaan anyway diyaaraddan waxa laga yaabaa dadka saarnaa inay dadkii waddanka u dhashay yihiin hadday doonaan inay Egyptian haayeen laakiin waxa la ogaaday oo gabadhan haddeer ay soo ogaatay diyaaraddaasi inay dad ilaa 18 qof siday diyaaraddu dadkii ay keentay dabadeetna diyaaraddii oo madhani ay keligeed noqotay ma garanaysaa iyagaa maamula exactly waxay kaloo ogaatay diyaaraddaasi meel walba oo turning point event ka jirtay in ay tegi jirtay waliba maaha turning point events oo dhan maaha turning point events ka turning point fate kuwa la yiraahdo inankii yaraaye ayaantii dhaweyd aan idinla wadaagay Mike McCoy intuu Halow Cabdiraxmaan intuu chief of staffkiisa ahaa gacan yarihiisa ahaa markii xabadii boom ba markiiba turn around sameeyay dhaqaaqay fiidihiisa viral noqday meel kasta ka dhacay la leeyahay how could you be adoo chief of staffkiisa aad intaad xataa muu arag inuu kursigii isagoo weli ka dhicin 1 second kii on dhamaanin ayuu sii jeesto dhaqaaqay xataa muu arag xabadu inay ku dhacday dhiigga soo daatay muu arag waxba you can imagine less than a second maxaad arki kartaa gadaashiisana wuu taagnaa dhacdii uu maqlay markiiba uu dhaqaaqay xaqaas uu dhaqaaqay telephone buu bilaabay inuu ku hadlo inankaa yar aabihii isaguna turning point organization kan uu shaqeeyaa waa pastor kuwan la yiraahdo qaybta diinta ma garanaysaa ayuu maamulaa pastor Billy McCoy Muirhouse or something anyway and Mr. McCoy anyway ninkaas waxa la ogaaday ninka iyo nin I don't know inaad aragteen markii la toogtay dhiigu sida u soo yiri nin timo dheer oo baloona lahaayo oo USA lahaya arkay waxa la soo ogaaday ninkii maalin dhexdaas video buu soo sameeyay ninkii waa la raadiyay xataa cidima wareysan FBI ma wareysan cidina ma wareysan laakiin shicibkii baa aad iyo aad arrintii u baarbaaray ma garanaysaa let me see inaan heli karo ninkii waxa la ogaaday ninkan video buu horta soo duubu leeyahay maya anigu video very strange oo dadkii ka shakiyeen ayuu soo duubu leeyahay maya anigu waxaan lahaa nacam dadkii wax toogtay baan lahaa haddaad doonaysaan inaad annaga waxna yeeshaan this is USA hadda waa nin dabaaldegayay markii ninka xabaddu ku dhacday anyway cajilad yaab leh buu soo duubay ninkii waa la soo helay waxa la ogaaday waa kan this is the guy waa kan waa ninkii waxa la ogaaday in ayba ninka odaygan magaca leh waa kan eeg waka isagoo sugaan idin tuse waa kan isagoo markii la toogtay siduu u dabaaldegay daya waa kan ya ninkii waxa la ogaaday in ninka odaygan Mr. McCoy wiilkan yar dhalay in ay saaxiib yihiin inay faydka qaybtan faydka ay iskala shaqeeyaan in ninka laga shakisanaaba in uu waxyaabaha la yidhahdo money laundering iyo waxan organizationadan aad aragtaan companiyadan aad aragtaan waxaan oo dhan xataa dagaaladani waa money laundering waxaan oo dhan waxa ka dambaysa odhan maaye dadka emta ka bilaabma
dadka imta ka bilaabma iyo wadankaasina waxa weeye wadanka Ukraine la yiraahdo labadaasba waxay u yihiin meelo lacagta la mariyo oo de lagu faa'iido oo dagaalada iyo dhiigga si ay ma garanaysaa u qulquliyaan ay ugu wadaan the whole reason why Africa ay u degi laadahay it's because hubkan waa in la iibiyaa hubkan waa in cid lagu dilaa hubku iskama ooli karo wuu maaroobaya waa in dad lagu dilaa dadka lagu dilaya ayay yihiin loo isticmaalaya dad aan naftoodu qiimo lahayn waa inay noqotaa waa in qabiilada la isku jeediyaa dadka la isku jeediyaa dhiig waa inuu qulqulo because waa the bread and the butter waa roodhidii iyo butterkeedii weeye ay kambaniyada waaweyn lacagta ku sameynayaan hubkii haddii inta la sameeyo uu meel iska yaalo dee faa'iido ma leh it's like a hospital oo kale hospitalkii waa in dad xanuunsadaan viruses waa in la helaa viruseskaas waa inay dadku waa inay cusbitaalka yimaadaan car accidents waa inay dhacaan you know waxa sida the same way loo ogaaday in kambanigii ugu weynaa Bayer company la yiraahdo dawada kansarka sameeya iyo aspirinka iyo waxa business la galay Monsanto waxa weeyaan waa tan lagu buufiyo beeraha in badan la soo gareynayay sunta lagu buufiyo beeraha ee loogu talagalay inay cayayaanka ka ilaaliso beeraha laakiin waxa la ogaaday inay sumayso beeraha dadna raashinka soo go'a Europe oo kale waa ka mamnuuc meelo badan laakiin Afrika iyo Mareykan iyo marka dadna dadku kansar baa ku dhaca imagine dadkii marka tanina kansarkay create garaysaa kansarkay samaysaa dawadani Monsanto tanina iyo tii daweynaysay baa isguursaday imagine that bal ka waran arinta ya labadoodii baa isguursaday waa perfect marriage adna wax sumee أنا أن ما دوينا سيدا لكن سيدا وحويان مهمة دماغها إنها دويسو you're not in the business of إنها دويسو business كات كتشرتا وحويان إن gradual ما قرنا سال العكس كسرعة تويه ولا قاعد نوقف كاسي وحلا يدادو محل يدادا وحلا يدادا إن حنونا لالنا لان كريسو معلدو ترى هذا يا terminal illness eventually كديلا يا لكن سألنا لان يصيد chronic illness chronic illness marka soo noqnoqo hadhowna de ku dili doona laakiin se waliga waa inaad dawooyinka qaadataa waa wax ugu fiican weeye dawooyinka inaad u soo noqnoqoto marka waxaan oo dhami way isku xidhan yihiin all of this waxaan oo dhami waa isku xidhan yihiin dadna waxa la ogaaday ninkii dhamaayay dabaaldegay bal hadda kibirka eega muxuu dabaaldegay waxa la ogaaday ninkan inuu yahayba uu ku xidhan yahay wadanka keeda ka bilaabma iyo wadankan kale bay soo ogaatay iyo in haddeerto uu Charlie Kirk intaanu dhiman uu hire gareeyay nin department Dodge la yiraahdo police like Sara kuwan wax orad gareeya because wuxuu ogaaday lacag badan ee company-ga inay soo galeysay oo ka baxaysay which tells you marka taas waxa ku sheegaysaa money laundering inay tahay lacag in la marinayay company-ga la dhex marinayay marka wax iyo de wadankii isaga ahaa iyo wixii oo dhan marka anyway qorshaha waxa weeyaan HIV AIDS dawadiisa probably way hayaan I'm sure way hayaan waati already dad baaba dawoobay way hayaan Mustafa soo qoray anyway marka waxaan oo dhammi way wada shaqeynayaan cad waxaan oo dhan marka la eego Candace waxay tiri I am this close case-ka inaan to break the case ma garanaysaa wide open inaan soft gareeyo intanaan u jiraa waxa la ogaaday ninkii hindiga ahaa in uu cagta mariyay national security-ga qayb ka mid ah oo qaabilsan counter terrorism-ka waxaan la yidhaahdo la dagaalanka argagixisada qaybta qaabilsan nin Joe Kent la yiraahdo oo haysta qaybtaas oo isaga kaba sareeya because the national security uu ka sareeya FBI-da because gudaha iyo dibaddaba way qaabilsan yihiin iyagu ma garanaysaa naagta hindiyada baa haysata national security agency-yada sirdoonka iyo dawladda ma garanaysaa wixii dibadda iyo gudaha ka shaqeeyo dham iyaday hoos yimaadaan anyway naagtii magaca lahayd hindiyad maahay wax weeyaan samawan bay u dhalatay laakiin waa hindu anyway naagtii nink iyada markaa ku xige ka hoos shaqeeya oo qayb kala haysta qaybta laakiin argagixisada ayaa shakiyay wuxuu yidhi waxaan u malaynayaa inay meeshan wax ka jiraan dad kale inay ku shuqul lahaayeen dilkii Charlie Kirk aynu baadhno can you believe ninkan yare FBI-ga haysta hindigan yari
inuu muraaro dilaacay white house-ka lagu kulmay wuxuu yidhi xadadaa joojiya waxaad baadhaysaan xalaaliya waxaad baadhaysaan ma jirto waxba kama qaban kartaan halkaa ku joojiya ninkaasaa loo haystaa ninkaasaa dembiga lagu soo oogay isaga keligii ayaana loo meel marinayaa faraha ka qaada shantana ha la gelina arrintan because waxa weeyaan annagaad arrimaha iyagaad faragelinaysaan arrimaha FBI du shuqulba kuma leba because it's a domestic issue gobolkii uu ka dhacay authoritygeeda dowladdeeda ayaa ku shaqale ma garanaysaa FBI hate crime hadduu yahay oo kale that's why ay ugu dhadhajinayaan arrintan trans iyo waxa because waxay rabaan inay more of a hate crime ka dhigaan ma garanaysaa si FBI du ay line ugu hesho ay la shaqayso kuwa waa another way of guiding the process inay iyagu guide garayaano sida ay doonayaan ay u meel mariyaan kiiska ma garanaysaa arrintii oo dhan baa soo baxday everything hadda dadkii shicibku way ogyihiin dadkii way ogyihiin waxaan dhacay oo dhan and they're not taking it kindly waxa weeyaan dhalinyaradii maraykanku way arkaan waxa dhacaya way ogyihiin ninkan inay u eg tahay inankan yari dilin waxa kaloo la ogaaday in ninkan la leeyahay waxbuu dilay markuu dusha tagay labiskii uu dusha ku tagay wuu iska bixiyey haddana markuu soo degay buu labiskii uu dusha ku tagay dib ugu noqday ma garanaysaa cajilad baa la keenay alla lamisi inaan hayo waxa la ogaaday cajiladaas ninka meesha marmaraya inuu u eeg yahay alla I hope inaan haysto waxa la ogaaday inuu u eeg yahay ninkii ninkan yar la saaxiibka ahaa alla cajiladii meeday I think waa tan suga inuu yahay ma aha alla meeday inuu wuxuu u eeg yahay baa la ogaaday ninkii I think waan iska tirtiray may waa kan maaha wuxuu u eeg yahay boyfriendkii ninkii waxa la ogaaday inuu u eeg yahay boyfriendkii marka waxaan oo dhan marka la eego dee dadku way ogyihiin what's happening way ogyihiin in wax aan caqligal ahayn la doonayo in laga dhacdhiciyo oo been loo sheego waxaan idin tusayaa madaxweyne ku-xigeenka aan ku xidhayaa markuu meesha ka hadlay wixii dhacay inama yarar baa waxay weydiiyeen waxay weydiiyeen why are we giving waxaanoo lacaga maxaan waddankan u siinaynaa alla berritana arrintaa si fiican u dhexgeli doonaaye wacdaraa dhacaya wacdaro waxa dhacaya I'm sure waad la socotaanbe check this out waa kan Israel foreign aid package I have a question about Israel foreign aid package to Israel waa habeen saddexaad Do you think it's a conflict of interest for Miriam Adelson, an Israeli donor, to give millions of dollars to his campaign and then Trump have pro-Israeli policies? I'm a Christian man, and I'm just confused why there's this notion that we might have owe Israel something, or that they're our greatest ally, or that we have to support this multi-$100 billion foreign aid package to Israel to cover this, to quote Charlie Kirk, ethnic cleansing in Gaza. They're going to try to ethnically cleanse Gaza. I'm just confused at why this idea has come around, considering the fact that not only does their religion not agree with ours, but also openly supports the prosecution of ours. Yeah, so let me... dhalinyaradii TBUSA weeye la doonaya in la First of iibsado all, when the President of the United States says America first, that means that he pursues the interests of Americans first. Israel, sometimes they have similar interests to the United States, and we're going to work with them. In that case, sometimes they don't have similar interests to the United States. In this example, the most recent Gaza peace plan that all of us have been working on very hard for the past few weeks, the President of the United States could only get that peace deal done by actually being willing to apply leverage to the state of Israel. So when people say that Israel is somehow manipulating or controlling the President of the United States, they're not controlling this President of the United States. ma arkaysaa dhalinyaradii la doonayay TBUSA in la afduubto oo hostile ma garanaysaa khasab lagu qaato si loo marsado kaadhka ma garanaysaa dhalinyaradii meel walba waa kuwa qof kasta sidaasay ma garanaysaa dadkan caanka ee meesha ka hadlaya oo dhan including Tucker Carlson and meel walba waxay leeyihiin jaamacadihii oo dhan marka eventkii lagu qabto waayo baanu waddankaa wuxuu siinaynaa annagaa u baahan waddankayagaa u baahan dhibaatada haysata iyo lacag la-aanta iyo homelessnesska iyo mashaakilkana haysta iyadoo waddankaasi saaxiibna nooma aha waa kuwa ma garanaysaa haddeerna dee Charlie Kirk baaba lasoo qaadanayaaba hadalladiisii baaba lasoo qaadanayaa oo lala hor imanaya dadkii halkan intay yimaadaan doonaya inay dadka yareer ka dhaadhiciyaan dadkani waa our best friendkeena already waxaa bilaabatay madaxweyne ku-xigeenkii maraykanku inuu yidhahdo maya
wadamada kale ay la mid yihiin ma garanaysaa wadamada kale adduunka inoo la mid yihiin marmarna saaxiibtinimadeenu waa fiican tahay iyo xidhiidhkeenu iyo dan baa isugu keen jirtay wada shaqaynta marmarna dan isuguma keen jirto already dadkii inay sameeyaan inay xataa madaxdii inay dib uga gurtaan ma garanaysaa marka TPUSA Turning Point USA waxay u egtahay oo Candace National Totally iyagu waxay doonayaan inay afduubtaan oo ay ajendadooda sii marsadaan oo ay Charlie Kirk dadka hortiisa intay ku dilaan dabadeetana dadka in badanina baqdo dib u gurato laakiin dadkii waxay siiyeen fuel ya gas bay siiyeen iyo energy dadkii ay xaqiiqada u dhaadhacaan oo deetana caqligooda ay isticmaalaan critical thinking wax la yidhaahdo because bini aadanka dadku waxaanay ogaan baran karin oo la yaab leh dadka bini aadanka lama khasbi karo fitrada inagu wada jirtaa bini aadanka ilaahay markuu yidhi bini aadanka waan karaameeyey kulligan waxay nagu jiraa xorriyadda waxa la yidhahdaa muhiimadda ay leedahay ma ogolaanaysid inta aad neefsanaysid ilaahu ma balaq lagaaga siiyo mar walba xorriyaddaada doonaysaa caqligaaga in la muquuniyo qaladaad arkaysid in lagugu muquuniyo lagaaga dhigo waa sax cab qaado fahan ma yeelaysid ma garanaysaa wax walba oo la isku dayo in la qariyo iyo in la kafargareeyo curiosity-ga ka sii bata inay dadku sii baadhaan wixii inay dadku sii ogaadaan wixii inay dadku why sababta ay sii weydiiyaan ma garanaysaa marka this whole thing backfire buu sameeyey iyagii buu dib ugu qarxay waxaan idin tusayaa right now stay away from the big trend with political candidates right now, stay away from the toxic endorsement of AIPAC. And ma'am, you're running for U.S. Senate out of New Hampshire. Are you taking AIPAC money? Hell no. Why aren't you taking AIPAC money? AIPAC is toxic. That has destroyed our foreign policy for decades. No more, and no more AIPAC. Your thoughts on Benjamin Netanyahu? Benjamin Netanyahu is a war criminal. We should arrest him and send him to The Hague to be prosecuted. That is absolutely fantastic.